aan arag runtiina weeyo hadda gadagadaal u akhriso waa oil marka Afrika xataa ma ogeyn arrintaas sirta ee ka fakatay ayaa loo haystaa horta taariikhaha midda labaad qodobka ugu weyn oo odagaan loo haysto waxa weeye dhalinyarada uu kicinayo oo dhalinyaradan aan kala qaybinay 30 sano dhaqaalaha noogu baxay ee qabiilka ee taariikhdoodii oo dhanba aan ka dhignay qabiil iyo maamul goboleed aan waxba aan kala ogeyn dhaqaale naga baxay muxuu ahaa manhaj aan iskoolka odaas aan u dhignay ee aad rabto in nagu soo leysmaa sababtoo qofku bili aadanka ah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah horta aadan ugu xumahay oday 9 jira professor Shacaib in la iska xiray saxiix taamooga waxa loo xiray laakiin ana u sheegayo oo wiilka muusada sirdoonka shanta qaran shanta Soomaaliyeed ah isagu wuxuu haystaa in loo xiray barnaamijyadii taariikhda carabta uma xiran ninkan waxa loo xiray ajaanib baa xiratay xaalana xiratay shalaytana nin Sheekh Mustafa la yiraahdo afkiisa idinka sheegay nin John la dhaho inuu dadka iska soo xidho waxa lana joogo marxatibaad ka eedan odagana waxa loo xiray waxa jirta sir xitaa Afrikaanka ma oga Afrika dawladeeda xitaa ma oga ceelashii reer galbeedka qodeen ay taariikh 1930 ilaa 40 ay qodeen wadooyinka waxa loo bixin jiray hadda Soomaaliya kala daqa soo qaad Soomaali state bay ugu badan tahay wada American hadda maqasho waa wada shida lagu baaray every wada American waxa arkaysa ceel qodan oo 710 ku taal haddii ceelasha la dhawaalo tirnaya Soomaali state horta kuwaas 500 gaariba no doubt cid maanta iga dhageysanayso oo Soomaalida kale iska mid ah dhulkeeda kale taba Soomaali state oo dhaha caawa wada waxaan arkay wada American la yiraahdo on ceelka 710 ku yaala aan arag runtiina weeyo hadda gadagadaal u akhriso waa oil marka Afrika xataa ma ogeyn arrintaas sirta ee ka fakatay ayaa loo haystaa horta taariikhaha midda labaad qodobka ugu weyn oo odagaan loo haysto waxa weeye dhalinyarada uu kicinayo oo dhalinyaradan aan kala qaybinay 30 sano dhaqaalaha noogu baxay ee qabiilka ee taariikhdoodii oo dhanba aan ka dhignay qabiil iyo maamul goboleed aan waxba aan kala ogeyn dhaqaale naga baxay muxuu ahaa manhaj aan iskoolka odaas aan u dhignay ee aad rabto in nagu soo leysmaa sababtoo qofku bili aadanka ah haddii taariikhdiisa uu ogaado wuxuu originalkiisa ahaabu u noqonayaa laakiin qofku hadduusan taariikh lahayn wuxuu noqonayaa one time use alaabta la yiraahdo camal u noqonayaa kolba ciddii u timaadday wax u sheegtuu taariikhdeeda noqonaya taariikhda dhallinyaradoo dhanna 1991 ka bilaabmaysaa hebel dilay hebel qaxnay anaga ka adkaan intaas bay ku mashquulsan yihiin maarta wax kale ay ka hadlayaan weligaa la noloshaaday iyo maamul goboleedkayga iyo calankayga iyo reerkayga iyo qabiilkayga intaas lagu intaas waay marka see dadkan dhintay ee baktiga ah aad u soo nooleynaysaa baa loo haystaa midda saddexaad loo haysto waxa weeye taariikhaha carabta inuu ka horreeyo sababtoo dadkan carab aan ku yaan barraali abtir kare ma yaqaanaan hawiya dhii abtirso reer binu fahal buu gali daarood baa dhii abtirso reer binu fahal buu gali dir baa dhii abtirso reer binu fahal buu gali nimanka aan reer binu fahal galin ee ka weyn waa nimanka jareeta aan jecelahay weey kuwaas ugu nasabsan ninkan maanta carab sheeganaynin baa wallahi ugu nasabsan oo billahi oo tallahi nasab dhalay nasab dhalay ninkaas carabtu ku dhigeeday garanaynin ba nimanka hadii caawa Soomaalida la weydiiyo war carabtan maxay ahayn ma ogaba ajab iyo carab baa jirta ma gartay wax la carbeeyay baa jirta xitaa marka waxaan rabaa marka hal inaan dadka Soomaaliyeed u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed u dooday wakaas kuwii baa askar loo soo dirsaday waa la xiray dalka marka waxaan weydiinayaa qofka shacabka leh xasana madaxweyne ka ah Muuse Biixaal madaxweyne ka ah diniya ka ah muxuu ahaa ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa Axmedo baa ka ah qorqor baa ka ah maya lafta gareen baa ka ah hebel ninkii sad wasta muxuu ahaa Ali Gudla waa ka ah been baa isu sheegteen iyo khiyaali dalkan waxaa iskale oo xukuma xalana warqad askar Soomaali soo dirsatay waa la qaatay oday waa la tagay weligaa ma artay isagoo hal eray oo madax ah wax ka sheegay weligaa Allah ma artay qabiil Soomaaliyeed soo wax ka sheegay weligaa Allah ma artay nin madax oo Soomaali xitaa degmo soo wax ka sheegay xitaa wax wala qarayaan isagoo dhex gastay ma artay maxaa lagu haystaa haddii ogaan lahaayeen dhalinyarada cabsida laga qabay odayga maxaa u kicinaysaa bas leeyahay maxaa taariikhdooda u baraysaa leeyahay
انت كليا هدي اوغان لهايين dhalinyarada Soomaaliyeed habeen bay waxayaan iska dhigay warwiilka mucjisada loo geeyo dad badan baa horta raba maanta inaan wax tuso dhaha warwiilka mucjisada soo bax anaga ku daaficino ana saan ku dhigay war ninkaas miskiinka ee 90 jirka laga xishoon lahaay aniga maxad ma aniga horaba waxa lagu yiri ma garan wallahi inana beenidii sheegay billahi xali aad nolol kugu qabano ogow kuwa kale Soomaali baa u diraa leeyo Soomaali baa u diraa ونحن سود أما صومالي بعد أنا نوك كنا نوحرة أديك صومالي سكون نوك كنا ده نبالي مشين ك سنبوس كل وش اللي هناك يرى مارت مشين أنت قبلنا هناك سأوشين ينشين براه سيرنا نبالي شبراه حيتان إسكده أديك إنا نولاتي ميت كذا حتى الله معك يا لوير ميت كذا معك ما أنت بركوا عن كويدين يا إلهي بأنكم قد أشي مارت يقولي هل نروح لنيرا أسواق هذا أنا يحتى تكون هل الكمالية اللي دول لقى عن هذا كشيء كيو يا ولقى مارت هل نروح لقى أسواق هذا أنا ورا أديك المحل وحرة ولقى مية أرتقف كده اللي يرى ودود ما تنين اللي يرى بريمر كهلا يا ابن هدي بلن أحمر صورته قل مدق ويكون داون هدي قل مدق صور بلن ويكون داوني سومال لأن هدي صور قل ويكون داون بلوها بلن بلوها خاتمة هدي نصور سومال لو ويكون داوني مقدش هدي لو يرى أنت كلا ويكون داون يا هورنا ويوضع علي وأنا أكتر مركا ما أنت وحاجر مركا ما أنت إلهك كود أشياء عضيقي واحد هذا مجرته wax isweydiinay ma jirto dalkiisii uu joogo hooyo ayaa waxa ka qaatay shisheeyana la tagay niman Soomaaliya askar Soomaaliyeed loo soo diray aniga dhalinyarada Soomaaliyeed ka leeyahay maanta idinka ugu dulisan askariga waa isaga eeyga la dirsanayo waa isaga muxuu ahaa ninkii dhalinyarada Soomaaliyeed maanta sheeganayo qabiilka ku adeegsanayo waa isaga ka dhimanayo waa isaga ka wax dilayo waa isaga ka la dilayo waa isaga ragga lacagta ka sameynaya iigoodana waa odayaasha waaweyn ee kunta jirrada anoo kale inta waay kuwaas lacagta ka sameynaya marka waxaan rabaa inaan weydiiyo maanta ilaahan idinku dhaashay ninkii dhahayo wiilku mucjisada soo bax qaacida aniga aan barto waxa kamid ah leedahayo marka aad xumbaarsan tahay qadiyadana dadka aysan gaarin haddii lagu qabto ama lagu dilo qadiyada halkaas ay ku dhimanaysaa rajo ma laha laakiin markay dadka gaadha qadiyada inaad adiga qoorta u dhiibataa waajiba ani qadiyada ayaa la soo baray inaad adiga qoorta u dhiibato adiga hor kacdo sababtoo ah dadka dhanaa qadiyada qaatay mid maysa ma ah urtimo guushu waa la gaaraya oo kuwan hadda muxuu la qudus iyo kuwan Lebanon maana walbaba madaxda laga laaynayo ma istaagayso mid baa kolba la keenaya mid baa iyagana qaaday mid baa la keenaya marka qadiyada hada maanta ani marka waqaasi yaa u doodaya maanta ninka liider Shucaib yaa u doodaya professor Shucaib yaa u doodaya cid doodaysa ma jirto أنا ما أنت أنا صار هدي اللي قرطو محمد لكن هدي بقول ويلو سنت معمول قبلات يو محوها جيجيو جارسة كقاتو هذا أركو أنا بصوب حياة قرط على جدر هاي شيء ده مكاس واي already قديد دواتكت وأور قديد مركزتك شو أور ويدالي وحنا نكسب بدالي صار لكن قديد وروبينو عروس حتى أنا هين هدي اللي قرطو وأخوه ماتي وواحد ما أنت ninkaas odayga waayeelka ee 9 jirka ah xitaa u doodaysa ma jirto laakiin maanta hadduu qabiil ka hadli lahaa ama candha ka hadli lahaa sida dhalinyarada ama maanta uu deegaan u hadli lahaa cid taaba leh cid la hadlay ma jirto cid taabanayso iyo cid la hadlayso xaaraanay ka tahay sababtoo ah waaba lagu talagalay intaana ku mashquulsana waxa inta ka baxsan laguma ogola ina madaxaada kor u qaado cirka fiiso dhaw war maxaan xageen taaganahay oo komada aad ka baxdo markaas arkaysaa cadawga lugaha ku haysto maalinkaas indhaha saaraysa halkaad qabiil ka baxdo adoo dhalinyaro ah ma garata meel baa lagugu xidhay qabiil kugu xidhay muxuu ku hayaa nolol muu ku hayaa cadaab buu kugu hayaa oday meesha kugu haysto lacag kugu sameynaya ayaa adiga calan gacan ugu qabtay gurbaan u tumaysaa wiilka walaalkaaga Soomaaliga ah ee aad isdhex yaaci lahaydeen isdhex ordi lahaydeen isku dheef noqon lahaydeen isku dhimasho noqon lahaydeen ayay idinka odayaasha idinka kala hayaan ina isfahantaana waa la diiday inuu qadiyad meesha ka dhalatana waa la diiday taariikhdan aad faqaysa maxay tahay leeyahay odaygan loo haysta araba xidhiyo war arab meesha waxba kama aha meeshan xalano waaye 17 kale iska xitaa madal dabo xitaa markuu soo bax ar hadal dhih hadii la daayo nolol loo daayo ar dim dambe u hadal baa la dhih odaygaas hadal dim baad arki doontaa laakiin odayga geesu buu ahaa 9 jir buu ahaa nin 9 jir wuxuu ku sheegay ma bambe ku sheegay oo qabrigiisa maanta in kastoo loo sameeyo maanta mulkumoodka laakiin nin og maanta inuu ma aatay waayeel yahay
إنه بين أبورت أو حاسس بين كذا شيء تمام مالينسا بقول كيف بقول واحد أو شيء يقول روي روي عاو عنك هدي اللي يرادو ورني يهو توحد هاي أورومو waxaad ka tahay muxuu ahaa waxaad ka tahay muxuu ahaa axmar waxaad ka sii tahay afar hadii la yiraahdo on aamino maxaan ahaa isma dhahayo laakiin haddaan lii sheego la yiraahdo warmati waxaa tahay adoo 7 jir 8 jir ama 10 jir ah baa lagu soo qaaday qoliyahan ku soo xadeen waxaa tahay Soomaali oo Soomaaliya maxay tahay wallahi waa dadkii noocaas maalinkaasaan qab iyo kibir iyo qadiyadayda ku soo laabanaya tilgu diiday waa taas ilaahan kugu dhashay inaad ka facweyn tahay oo ka facweyn tahay carab oo ka facweyn tahay wax kale hadaan cilmi kale sameeyeen masaajidka laba qabiilteen ka ma ku fahmi karo weyd xagu ka jira maanta masaajid laba qabiilteen ku yaal oo muslimiinta ah marka laga reebo qudus iyo ما حقوق كجرا إله نقول شيء إله بنقول شيء حقوق كجرا كويا لا عربها وسنقول الحيطان ما قرأت لكن نسيب حمو وحلقوا صحري وفلو فريه ولا طوري هذه كان عيد وحكو شيء كرت مجران أفرد ما لقوا صحري منكم صحري مم القبلة رهيب البنهاي بكيري هل كاسات كحر انتهاي ما aragtay isha war xitaa dhalinyaro waxa jirtay isdhaxgali jirtay oo intay hadalkayga qaateen oo war dhalinyaro isdhaxgala is arka idinka oo wareegi jira ma xasuusataan Muqdisho soo maray Baydhabo soo maray Garowe tagayay Hargeysa tagayay xaggaas dhalinyaro xagga u dambeysay ma taqaana waa la kala diray qosqos loo kala bixiyay xitaa qabiil loo kala bixiyay wax dhalinyarada ku saabsan oo rajaa hadii laga dareemo والله بالله تالله طلع عندك والله ضافنا وايو وحي اوغيين way ka warhayaan quwadda koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad Soomaaliya inay dhalinyarada tahay hal maalin haday qadiyadan qaataan DKM oo ciidanka militariga qaato dhawr xageen joognaa xageen ku sugnaa maamul goboleedada ciidankooda qaataan kulli waa soo qabanayna ogow xalana wasiiq xilad kuraastooda iyo kombiyuutarada dhaxla waxaan meesha ugu tagnaan anaga Ilaahay baa dhilay xaqli iyo lugtiisi way mugta xaqli iyo maxay kabtaada dhuntay yacnaha horan baa laga sii gastaa mugta waxa meesha ku arnaa xaqla dad iyo dunyaba xaqlahay naga noqon lahayn laakiin taas lagu diiday waxa lagu rabaa in adiga lagu baryaray si hadhowta cadawga ku soo weeraray tabar u yeelanin walaalkaayo Soomaali ah mid lagu sheegay argagixiso mid lagu sheegay qabiil mid lagu sheegay reebel mid lagu sheegay caad bay soo dhuntay miya waxaas oo dhan gamekas mid waxa lagu dhaaf madax banaani baan rabaayo ninkan madax banaani iga hortaagan dhaho ya intaas hal oday ku dhimanay ma jiro har isoo sheeg oday imanay waxaan dagaalo socdo wili maarta wallahi waxa ka jiro oday dhintay 1991 ka soo bilaw lama xaqro dhalinyaradii macuusleyda ahaa iska kicinayay muxuu ahaa argagixisada rebel weyne nin kamid odayaashii oo ku dhintay waaweynaa Mooriyane ma jirto oday ma Soomaaliyeed oo ku dhintay waxa kala socdo lagu ma tirgelinba lacagtooda inay qaataan way iska tagaan kuwan dhulka iibiyo waligeedna Soomaaliya waxa iibiyo dhulka oday waxa iibiyo qabiilka adeerka Suudaankaaga madaxdaada ma muxuu ah waxa uu taqaano sheegay ya ma ogaad adartay odayaal baa dadka Soomaaliya iibiyo Ingiriis odayaal baa ka iibiyo Soomaali state odayaal baa ka iibiyo Soomaaliyana hadda madax aad ku sheegay intaan maxay noo hayeen kuwii noogu sharaf badnaa bay ahaayeen kuwii qabiilka u daba taagnaan bay ahaayeen hadda hadal badan idin ku dadudaan ani waxaan qancinayay horta Ilaahay odaygaas 90 jirka maanta cadawga ka soo laakiin maanta ninkii Soomaali oo dhalinyaro oo damiir leh intuu fariisto oo 18 jiro 37 gaarayo bal intaad fariisato guri cilaa aad tagto waxa isweydiisaa odaygan 90 jirka ah ee la xidhay ee ajnaanibta xiratay ee Soomaali xiranin madax dhibaato u geysanin dal ka hadlin dawlad ka hadlin umad dhalinyarada Soomaaliyeed bas oo taariikhdooda baraayay sababta loo xiray maxay tahay haddaad isweydiiso oo miiska aad saarato oo rogrogto aqli nadiif oo qabiil ku jiro ku rogrogto
maxaad ogaan ma taqaanaa waxaad ogaan cadowgaada rasmiga ah waxaad ogaan halka lagaa jiro waxaad ogaan adeerka adeerkay suldaankayga suldaankaaga xildhibaankaaga madaxweynahaada madaxweynahayga inay cadowga koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay yihiin yaad ogaanaysaa ma garata waxa lagu xiray maanta waa un dhallinyaradaas bis taariikhdiisu u baray ceelkaas 710 afrikada la baaro dhan wuu ku wada yaallaa weligeed oil loo maleynay xitaa waa loo yimid isaga hore baa loogu sheegay markhaati baad ka tihin isagu news ka hadlaa inuu sheegay waxaa la yidhi afaaraha maxaa ku geliyay 710 inaad ka hadasho maya aniga saasaan maqlay xaggaasaan maqlay dib dambaa usoo shaqada wuu ku soo celiyey odayga fiyaashiisa ugu dambaysa ku soo celiyey labadaasaa loo haystaa teen dhallinyarada taariikhdooda u baraysaa waxaan marin habaabinaa 40 sano aan kaga ciyaaray 35 sano aan qabiilka baray aan qadiyadda kaga dhignay ilaahayga kaga dhignay diinta kaga dhignay si dib ma noogu soo celinaysaa baa laleeyahay waayo 3 trilyan baa ku baxday 34 sano waxaa la sugayay maartay libaaxa markuu dhaawaca yahay intuu baktinayaa la sugaa moogta geed hoose uu dhiig baxayaa uu dhafarture intaasaa la sugaa marka neefku dhaawaco dal ay laqayn oo dhunjiyeen oo wax ka soo dhigaya jirin oo dhaawaco ay sugayeen intay qaadanayaan ayuu rab inuu soo noolayo soo bakti afuuf marka ka xumay wallaahi aadan ka xumay laakiin waxaan aniga isla qarinaayo waa intaasu waa intaan dulqarnayn ninka la yidhahda allah u naxariista jannadan allah siiyo jannatul firdowsan ilaahay ugu baryayaa maxaa lagu dilay maxaa lagu galabsaday haddaa weydiiso maanta waxaa lagu leeyahay nin baa mindi ku dhuftay weliga ma artay mindida ninkii ku dhuftay oo intii noo keenay maxkamad dadka shacabka loo keenay sababtaasaan ku dili leeyahay asan xitaa iyaga dhexdooda xitaa khilaaf dhex maray xitaa halla been abuura xitaa halla ma artay may laakiin maxaa artay ninkii oo la cafinayay dilay ya xitaa la dilin baad aragtay ogow adiga haddaad moodaysa cadow kale inaad leedahay wallaahi bilaahi tallaahi qabiilka kan kula ah in adeerka ah baa lagu soo dirayaa sidii dulqarnayn mindi buu ku gelinayaa mindi maxaa lagu haystaa dulqarnayn maanta run kama hadli kartid fiir been iyo barbuqaadha haddaad ka hadasho cid ku taabanaysa ma jirto haddaad candha ka hadasho haddaad qabiil ka hadasho haddaad maaragtay maamul goboleed aad u sacabtunto haddii waxaa la sameeyey haddii aad tumayso gurbaankooda cid ku taabanaysa ma jiraan laakiin maalinkii aad dhahdaa mustaqbalkii soomaaliyaan ka hadlayaa mise dhallinyaro soomaaliyeed baan ka hadlayaa mise qadiyad baan ka hadlayaa maalinkaa dhahdo maalinkaasuu gurigaada gablan kugu soo gala ka warran ninka 16 sano hadlaayo oo maaragtay inta halkan kuu taagay intaa dhuumanayo gabbanayo ma garatay marka intaa ka badan wax lagu sheegi karo ma jiraan waa qoom rogmay oo meel loo wadaa tahay laakiin odaygaa 90 jirka wuxuu adagoo 20 jir oo mustaqbalkaadii maanta kuu cad war mustaqbalkaada u kac oo dhalinta kacdoonka midnimo qaado soomaalima cadaalad sanaan shidiidid qabyaalada kitaabka ilaahay 20 sano 10 sano dambe u dambayso adigaa miraheeda guranayo maaragtay barwaaqadeeda gaarayo laleeyahay oo u kicila oday 90 jiro hadduu ka badnaynba oo waayeel ah oo maanta isku dayayo inuu adigaas ku kiciyo dhallinyarada u maqlin maanta xitaa dareen aadan lahayn aad dhahdo odayga 90 jirka ahaa ee aniga i kicinaya see loo xiray xitaa aadan dhehaynin see loo xiray yaa yidhi xira amsorry waa ka xumaaniyo ma wadi karo waxaan kale waa ku damiro ibnu raxmadana waa waxaa waay dhiig karka u kacay khayr idin rajinaa wasalaam